بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu joognaa Dublin gaar ahaan masaajidka weyn ee Dublin 8 xarunta IFI oo maanta marti noogu yahay sheekha weyn ee Soomaaliyeed Saciid Raage, Sheekh Saciid Raage oo nooga yimid dalka Canada oo runtii halkan ku qabtay muxaadaro weyn kana qayb galay mu'tamar weyn oo shalay iyo maanta ka socda Dublin. waxaa sharaf iyo karaamo noo ah inaanu maanta fadhigan kala qayb qaadanayno casuumada oo noo fidiyay Imaam Cabdirasaaq, Sheekh Cabdirasaaq ilaahay khayr iyo xasanada ka siiyo. waxaa goobta fadhiya gudoomiyaha ummadda Soomaaliyeed ee Ireland Axmed Gadif. waxaa kaloo nala jooga Imaam Sheekh Dalmar oo nooga yimid Barigan oo aad iyo aad wada garanaysaan. dadka kale ee karaamada iyo sharafta leh ee goobta noogu yimid waxaa ka mid ah Muuse, Sheekh Muuse, waxaa ka mid ah Yacquub, waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xariir, waxaa ka mid ah Jamaal, waxaa ka mid ah Cabdiwahaab, waxaa ka mid ah Sheekh Naasir. waxaa goobta iman doona mar dhow Sheekh Cabdirasaaq oo runtii kulanka qadaa sharafta leh iyo karaamada leh isagu isku soo dubariday. waxaa kaloo goobta soo fadhiisan doona Cabdicasiis oo sheekh la socda. waxaa soo fadhiisan doona goordhow isna Sheekh Saciid Raage oo isna marti noogu ah maanta, Sheekh Yaxye oo imaamka guud ee masaajidka. marka maalinta waxaan arkaa maalin aad iyo aad u qiimo badan, maalin farxad leh, maalin aad iyo aad dadka Soomaaliyeed si gaar ah la iskugu keenay oo la isku barayo sheekhiga. waxaan jeclaan lahaa sheekhu inuu kulankan noqon kulankii ugu dambeeyay ee uu noqdo kulan dambe oo insha Allah kan ka weyn in la isku yimaado. marka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa Ilaahay isku keenay. waxaa sidoo kale sharaf iyo karaamo mudan isku dubaridaha barnaamijkan oo runtii live TV ilaa shalay ilaa maanta u sii deynayay adduunka oo dhan laga daawanayay. waxaa suurtageliyay kulan oon leenahay karaamo iyo qadar iyo sharaf lagu hayaa. aad iyo aad baan ku salaameynaa dadaal Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wanaagga. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع الإخوة وترحيب خاص بالشيخ سعيد بالأخ الضيف الكريم الذي معه عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز. وإن شاء الله ترحب بكم البلاد إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم إخواننا هنا في هذه البلاد إن شاء الله. فضيلة الشيخ سعيد ونصور وينا مسجد دبلن صلوا الشيخ لنا هاي مسجد كوا مسجد كاجي وتنوض كاجي. مرحبا بك فضيلة شيخنا سعيد. سلوك على حسن وحنا نرفضية قدوميها جريدة الصومالية هنجذا ونرجوها سلوك على أئمة مساجد الصومالية دي كانوا نرفضيان أو شخصان مكمليها. يا شيخ عبد الرحمن سجلت إن شاء الله ونسوي قاعد يدون أساسا إن شاء الله تجينا مكا ولا عندما تكسو هذا كل ولا راح كلا يعني سهل بدونا. جزاكم الله خير. مرحبا بكم في مسجدكم. جزاكم الله خير.